سائلكاني wuxuu yiri waxaan ahay qof hurdada ku dheela laaba ama isagoo hurda waxa lagu rabo sheego laba xaas baan leeyahay labada xaas mid kamid ah ciladeeda ogaatay hameen barkiiba inta ay kicisay tii kale iga furta reerkii maxaa dhaqan maxaa furan alxamdulillah horta qofka bini aadamka qaacida shariicadeena ficilkii iyo qowlkiisa erayga iyo falka uu sameeyay loo qabanayo waa wuxuu qasad iyo ku talagal u sameeyo wixii qasad iyo ku talagal ka baxsan qabasho malaha sadarteed baa qofku isagoo soo jeeda waxyaabo aan loo qaban baa jira waa la qasbay waa qof khiyaarkii laga qaaday oo isagu rabitaankiisa aan waxan ku dhihin qasadku waa rabitaankaaga aad ku dhahdo way rabitaanku wuxuu u baahan yahay inaad rabitaankaaga ku dhahdo waxaad leedahay inaad ogtahay oo garanaysaa ka horeysa qof la qasbay wixii eray uu ku hadlay looma qabto hadduu xaas furo hadduu gaalnimo ku hadlo ilaa man kuriha wa qalbuhu mutmain maxaa yeelay qofkan doonitaankiisa iyo rabitaankiisa kuma hadlin rabitaan dad kale ku hadlay waa laga keenay adoo soo jeeda baa nusuusta shariicadu sheegtay inaan lagu qabanaynin eray carabku ka xaday oo ku talagelin eray baa rabtay inaad tiraahdo eray buu afku ka boobay waxa nabigu sheegay nin gaadiid meel cidla kaga lumay sahayd iyo biyo u saaraayeen intuu raadiyo waayay buu yiri bas meel aad u ciirsatana mala cunti iyo biyo geedka hooskiisuna iskaga dhimatay halkan iska joogo iska hurda qabatay markuu soo toosay buu gaadiidkiisa oo kor taagan arkay farxad buu kala badbatay marka ilaahu adoonkaygi baa taana rabbiga baan ahay wuxuu rabay inuu dhaho ilaahu rabbigay baa tahay ana adoonkaygi baan eraygii baa ka gadmaday farxadii badnideeda eraygu waa gaalnimo looma qabanin waayo eraygan inuu yiraahdo mar rabine eray kale uu rabay inuu dhaho afka ka boobay waxa la mid ah fuqahadeena baabu talaaq kaga hadlaan hadii laakiin eraygan uu iga boobay sida aad u tiri si uu boobi kara afku waa inuu yahay ilaahu rabbigay baa tan adoonkaagii baan way isdaba mari kartaa waxay dadaan fuqahadeenu ka hadlaan nin baa wuxuu rabay inuu xaaskiisi u yeero Soomaali baan u bedelay waxa la yiraahdaa gabadha fartuun baa la yiraahdaa ka soo qaad fartuun inuu yiraahdo halkuu rabay uu furanay yiri ma furmayso waayo fartuun iyo furan way isu dhow yihiin laakiin adoo xaliima rabaa xaliima furanay balaga yeelaydi isoo kaysi way boogtay nin baa wuxuu yiri sagaaro lugteeda iyo dhigtaas kula qabtay xabad way kaysi wax kale way xoqanaysay baa waxani waa inuu khaldami karo ووجهه عديه ولذلك العلماء هذا كان وجه العذر ليس ببين فإن الطراح العذر خير من العذر وجهه sababta waxaan uu kaaga khaldamay aad u sheegayso waxba iga gadnay aad leedahay hadii wax la fahmi karo suuragal ahayn ila la sheegin baa ka roon min ciyaarayo been sheegay baa lagu qaladkii hadana been sheegaysa kugu darban marka eraygu haduu afku ka boobo uu soo jeeda eraygan inuu eray u dhow yiraahdo rabay eraygii uu kaga dhacay eraydu waa soo dhawaan karaan arabiga waxay ku yiraahdaan gabadha taariiqa la dhihi jiray yaa taariiqa isagoo leh uu yaa taariiqi bay kaga dhacday صدرت أريجا واي كتلاقل يا ربيتان ومدين قف هرد ربيتان ماله مكلفنا معه ولذلك صلاة دي هرد كاغا تكتي دنب معه هرد كاغا تكتي دنب معه نبي النبي إسحاق يسكسو دعوي صلى الله عليه وسلم حلق نبي حتى رسول الله يدور عشان يقول دعوي حكمدها صلاة الصبح نكن ومكعه إلى قرح صبح هذا مكره هذا توسي حاته ورويش باليسيه وحجره رسول الله وارنتد لكن واحد ربيتان كاغا معه خير سان نحبي هدو waxaan u leenahay habeen hadaan seexano ilaa qoraxtirka ay kululeysa ma kici karno kaligeena ma aabahay baa waa adeerkayba ooga hidaba saan u nahay reeba saasanahay ma kici karo yiri dawladda ku qosray wuxuu hadaa markaa soo toosto qofka naaimka ah bil ittifaaq waxa isku raacsan yahay mukallaf ma haduu hadlo waxbaan furay waan gaaloobay kanaan sameeyay dambi baan galay waxa soo dhax ka soo qaad malaha صدرت wax ka furana ma jiro qof hurdana wax kama furmaan hadii laga yeersiiyo haduu isagoo iskaga hada qaba qof hurda hadalkiisa wax ka soo qaad malo mukallafna maaha sabitaan iyo qasadna kama soo billahi tawfiiq